halkan il sawiro ka waran adigoo safara ah oo waqti ku gabay ka waran waxaa jiifta meel banaan oo geed ku yaalo waxaad isdhahday waqti uu ku dheeryahay magaaladaad magsii gaartid geedkan banaanka hoostiisa ku yaala jiifo ka waran waxaa kusoo toostay السلام عليكم اسكسو نقط ونكسن داوده مانتا وانكو ادانو فرحسناي سو نقط ونكسن معلومه بحاني دين ديجري ايران نقضى لكن تيتوس واتو هادين سو نقضي وحان اذن كالجينا مرور بحاين ديجري ران نقضى لكن هذا وحا كدنبيا من ايداهي ران نقضى اي وايو صوبتان ومخناجر وانيدن شي لكن وحا كبلاودو وهاكنا مقالكينا او muuqaalkan ku qaata raaligelinta muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay qiso ku dhacday wiil lagu magacaabo xasan qiso oo aad u cabsi badan waaye hada oo aad mu cabsi badna laakiin fariin idin dirosa yani fariin idin dirosa ama fariin ku socota adiga idaawanayo waaye marka قصيدة نوروسي قبل يعني هذا اللي كدارين واحد جرينا لو مقعه أمن لو مقعه جري حسن كنا ولا مقالة رياض السعودي حسن وروعها نين سفر بدن سمايا قار أهان ميلا بنان أيوك سفر جري أو لما دقان كعرفتها يعني ميلا بنان أو عادي وحوو إسكجع على ميلا بنان أو أنا لدقان أيو أدو سفر بدنا سفرديسا ما بمالو آداي مر سعودية مر يمن أدي معلم ما كمتا أما وقت هذا كمتا أسو ميل بنان أو لما دقان عربت أو سو سفري معلن هبينا أسيقو أو كي من السفر لير أيوكو أنسادي يعني وقتي أقصر لما ذي وحود يعني آدو قدالنا وحود على ستين سكونا ستو أو كوخاتو ميل أو إنه السحر يعني مقالة كمتة أو مقالة كبحثن هذه مقالة كمتة لكن ميل أو مقالة كبحثن تحاول جدا هذا مركز سوق جلست يعني مقالة كمتة مقالة كمتة مركز سوق جلست وحاجة مقلة مقالة كبحثن يعني مقالة ما أمر لك كبحثن تاي ساس يعني أقول جدا مقالة كبحثن oo meel banaan ah oo aad u dhaweynaan xaafida ama magaalada u socday oo geed weyn ku yaali ay go'aansaday inuu jiifto geedkaas geed oo aad u dheer u ahaa kadib asigoo oo yar adii jiiftay geedkina aadan sheegay geed oo qadiimi ah waaye markii oo hurdo galay wuxuu ku soo toosay cod hoos u ooyayo wuxuu ka fiirsaday banaanka teenda yani meesha teenda ku taalay waa idin ka hoos bixiyay raal noqdos waan idin kala jina meesha waxa ku taalay deento oo yar iyo geed weyn marka teendadu iska galay wuxuu arkay hoos madow oo si tartiib u socda markii uu damcay inuu dawaaqo hooskii wuxuu si وحسك بدلنين دهر وجيسنو مد بن آدم أن عادي إن إيسنو عدان أفكس أو ديك بحاجة هذه سئل سورة محل إلى تادي قف أضو ميل جيفو ووحير اسكو دايسي إنا كنا سبتو وإن دها إسقالان وقصوت توستي إن آدم بن آدم كماليسنين بن آدم مرينس لكن بن آدم كماليسنين وعبت حسو أوينايو kadib waxaa dhacday ninkii aad u cabsaday aad u la yaabay macsiis xasan wuxuu bilaabay inuu aad u gariiro oo din iyo qayl isku darwaayo wuxuu sameynaa male kaliya waxa u furan inuu ooyo waayo asdan caadi isku dhigay wuu gariiray kadib wuxuu bilaabay akhriya aayatul kursi codkii jinka ayuu ku qoslay yani jinka wuxuu joojiyey geeda dhan oo geedkii oo 100 sano agtiisa ku yaalay oo xasan jiifi kadib waxaa dhacday
xasan ayaa cod dheer ku yiri ilaahay ayaan kaagu magan galaa jinkii ayaa ka qaatay dhagax weyn oo si inuu ku dhufto xasanna jinkii ayaa isku dayay dhagax weyn qaato ku dhufto laakiin markiiba isku day dhagaxii wuxuu ku dhacay dhulka oo madow noqday habeenkaas oo dhan xasan maseexan wuxuu ku dhacay meel oo oo banaanka mid ku dhacay wuxuu kusoo toosay asoo qandho saaran oo familkiis kala joogaan wuxuu inta badan ilaa hataa xasan ka sheekeeyaa qisaas oo aad iyo aad u xanuun badan ah wuxuu dhahay markaa safar galaysaan marka ugu horeyso inaadan iloobin inaad akhrisataan adkaarta oo ku bilowdaan intaadan safar gelin adkaarta inaad akhrisataan mid labaad waa inaad samaysaan oo maalin inaad ku safartaan oo aadan ku safrin meelaha cidlada ah hataa safraysaan inaad ku safartaan meel maalin ah inaad iska daysaan meelaha safarka micno darada ah sida xasan oo kale iska jeclaa safarada badan dad waxaa jira muuqaalkan daawanayo oo safaro badan sameeyaan marka wuxuu dadka badan ugu digay in safarka badan oo aanan معناه لأن أتوا سفر كرتا عايز سفر نم مديدنا حسن وسفر كرتا لكن وحول جدي سفر وحاجرا أو خفك إسك سفر أو أنا وح معناه لأن قصينين وإسك جعل إنه سوء أركو دورة مجال يعني ميلا بناك سحر هذا كل ميلا إنه إسك سوء أركو لكن وحيالات آذروا في إياه وحاجرا ميلا أو دقن جنك دقن meelaas oo intaasoo sano ka hor ugu dambeysay oo la tago marka aad idinka diga xasan saasuu ku sheegay qasidiisa maalintii dambe dadkii reerka guriga oo ayaa waxay sheegeen in geedkaas uu ku yaalay qarno badan ama sanado badan qarno iyo sanado soo fahantaanba uu geedkaas ku yaalay oo inta badan lagu magacaabay jinniyada awood badan inuu geedkaas aga kuleeyihiin oo geed meesha waxaa waaye geed oo marar ugu dambeysay in la tago oo agtiisa oo dadka inta badan carabta oo ka jaakir jirtay oo carabta dhanka riyaad oo ka jaakir jirtay geedkaasa waxayna sheegeen inuu jinka uu degan yahay meeshaasa jinniyadu aad uga weyn inay meesha joogaan marka wuxuu idin leeyahay geedkaasna iskaga fogaada marow inuu sii sheego tuulada ama kala magac meesha waayo wuxuu kastoo ka jaakiray inuu sii sheego marow marka muuqaalkeena halkaas uu ku ekyahay waxaan idin galaalgelinaa waqtigii dheer oo aad soo muuqaal kusoo qaateen qofkii oo ku qanacay muuqaalkee aad u mahadsan yahay waxaan mar labaad idin leeyahay muuqaalka like saara subscribe shina share gareeya aad u mahadsantihiin والسلام عليكم وحانا بلنا مقالك حيو مقالك مقدرين وايو متكان عادي رالجين لو لكن مقالك كلا او ان صوبه هذا دوريا بدونتين